dhulka Saybiana waxaan ka codsanaynaa shacabka degan in ay muddada asbuuca la siiyo ku dhameeyaan waxaan sidoo kale tan rabaa in aan ummadda Soomaaliyeed xasuusiyo in 25kii bishii November 2023 muddo 2 bilood oo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu qabtay shacabkii Soomaaliyeed ee deganaa dhulka dabdamiska iyo hoggaanka dhismaha booliiska ee ku yaala ka soo horjeedka Saybiano halkaas oo ku ekaa bacdi loo qabtay 25kii bishii January 2024 muddo 2 bilood oo la siiyay ay halka ku ekayd shaqaqooyin iyo siyaabo kale oo waxa dhacayna waxa dib dambe taliska ciidanka iyo dadkii halka deganaa gudiyada loo soo magacaabay isla garteen in ay muhiim tahay ay laga maarmaan tahay in hay'adda dhulkeeda u baahan dhulkeeda dib u hesho oo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed dib u helo dhulkii dabdamiska iyo hoggaanka dhismaha booliiska oo soonka ku yaalay waxa lagu heshiiyay oo la isla gartay taliska iyo dadkii gudiga ahaa ee dadka aaga degani ay soo dirsadeen lagu heshiiyay in la siiyo muddo 2 asbuuc ah oo ka soo bilaabanaysay maalintii ku ekayd xilliga waqtigaas u dhacay oo shaqaqaduna ay dhacaysay xilliga lagu ballamay ayaa ah in shaqaqadaas ay gaarto in shaqaqada halka ku dhamaato dadka guryaha degan ee ku haray guryaha wali ku sii haray waxa la gaarsiiyay lagana wargeliyay in taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu siiyay 2 asbuuc oo kale intii ku guuri weysaneedna loogu talagalay inay xaaladda u isticmaalaan oo ku guuraan 2 asbuuc oo kale la siiyay 1 asbuuc waa dhamaaday hadda waxa soo haray oo taagan asbuucii u dambeeyay oo ku eg maalinta Arbacada ah ee asbuuca soo socota taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu mar kale si qadarin iyo sharaf leh ugu wargelinaya una gaarsiinaya dadka ku haray goobtaas oo loo gartay in waqtiga inta la eg aysan u saamixin inay ka guuraan in 2 asbuuc oo loogu darayna ay dhamaatay 1 asbuuc oo kamid ah u dhamaaday asbuucii dambana uu yahay asbuucan hadda fooda nagu soo haya oo maalinta Arbacada ah ku eg shirkeena jaraa'id intaas uu ku saabsan yahay intaas ayaan maanta ugu durxuleynay shirkeena wixii kale oo hadda kadib ku soo kordhana dalka Beetlehem Ilbaariya hawlgallada ciidamadu ay sameeyaan iyo sida dalka nabad looga dhigana si saan oo kala faahfaahsan ayaan dadka ula soo wadaagi doonaa dhulka Saybiana waxaan ka codsanaynaa shacabka degan in ay muddada asbuuca la siiyo ku dhameeyaan waqtigan ay ku tixgeliyaan una ogolaadaan in hay'adii awoodda u lahayd ee dhulka iska lahayd ay ku fushito howlaha danta guud ee shacabka Soomaaliyeed looga adeegay waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh